Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xidhan kanaalka Gees Media kusoo dhawaada macluumaad ku saabsan 10 dal ee ugu quwadda badan leh wadamada muslimiinta. Bangladesh waa wadan ku yaala qaaradda Aasiya. Waxa uu xornimada ka qaatay dalka Hindiya. Waxa uu wadankani ku bixiyaa difaaca dalkiisa 3.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uu leeyahay ciidamo ama military aad u xooggan. Si kastaba ha ahaatee, haddana waxa uu ku jiraa kaalinta 10aad kala horeynta awoodaha ama quwadaha muslimiinta. Morocco waa dal ku yaala qaaradda Afrika oo Carabeed. Waxa uu leeyahay military aad u adag, ciidamadiisa difaacu way dhisan yihiin. Dalkani miisaaniyadda difaaca waxa ku baxa 4.7 bilyan dollarka Mareykanka. Waa dal diyaarado iyo quwado aad u fara badan leh. Malaysia dalkani waxa uu dhacaa qaaradda Aasiya. Waxa uu leeyahay hub iyo ciidamo aad u fara badan. Difaaca dalkani aad ayuu u adag yahay. Waxa uuna kharash ahaan ku bixiyaa 3.6 bilyan dollarka Mareykanka. Waana dal leh maraakiibta badda quusta iyo kuwa badda dulmara. Algeria waa dal ku yaala qaaradda Afrika oo wadan Carabeed. Algeria waxa uu leeyahay ciidan aad u adag ama military. Waxa uu leeyahay sidoo kale hubab fara badan sida hubka ridada dheer leh. Algeria waxa dakhli ahaan ay ku bixisaa ciidanka 10.4 bilyan dollarka Mareykanka. Sacuudi Carabiya waa dal muslim ah oo ku yaala qaaradda Aasiya. Waana wadanka Maka iyo Madiina iyo xaramku ay ka dhisan yihiin. Waxa uu ku kharash gareeyaa difaaca dalkiisa ama ilaalinta iyo ciidamada 69.4 bilyan. Iiraan waa wadan dhaca bariga dhexe ama qaaradda Aasiya. Iiraan waa dal ku kharash gareeya difaaca dalka 19 bilyan dollarka Mareykanka. Sidoo kale waxay leeyihiin military aad u adag, ciidamo dhisan iyo diyaarado iyo hub iyo sidoo kale maraakiib. Waxa uuna ilaashadaa xeebaha baddiisa. Indonesia waa dal ku yaala Aasiya. Waana dal muslim ah. Waxa uu kaalinta 4aad kaga jiraa kala horeynta quwadda muslimiinta. Sidoo kale waxa uu leeyahay kharash ku baxa ciidamada dalkiisa ama difaaca dalkiisa waana 8.1 bilyan. Waxa uu leeyahay ciidamada military oo aad u adag, maraakiib iyo diyaarado iyo hubka ridada dheer leh. Egypt ama Masar waxa uu dhacaa qaaradda Afrika. Waa wadan aad u quwad badan. Waana wadan Carabeed. Waana wadan difaaca dalkiisa ku bixiya 11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Wadankani waxa uu leeyahay military aad u fara badan iyo hub sida qoryaha waaweyn ama hubka aad u adag iyo difaaca badda. Pakistan waa dalka kaliya ee muslim ah ee leh habka nuclear-ka ama waxay leeyihiin dalkani ciidamo aad u adag oo tayo leh. Sidoo kale waxay leeyihiin military aad u dhameystiran iyo maraakiib iyo diyaarado iyo markabada badda. Waxay kale leeyihiin ciidamada badda iyo ciidamada dhulkaba. Sidoo kale waxay leeyihiin diyaarado aad u sareeya oo hub badan qaada, xamuulka qaada. Waxay leeyihiin sidoo kale gantaalada ridada dheer leh iskaga gudba ama iskaga goosha badweynta Indiya. Turkiya waa wadanka koowaad ee muslimiinta ugu quwadda badan leh waqti xaadirkan. Waxa uu ku bixiyaa difaaca dalkiisa 19 bilyan dollarka Mareykanka. Sidoo kale dalkan Turkiya waxa uu leeyahay ciidamo aad u fara badan oo awood leh. Waxaana madaxweynaha waqti xaadirkan Recep Tayyip Erdogan. Turkigu waa wadanka kaliya ee dhaca 2 qaaradood, qaaradda Aasiya iyo qaaradda Yurub. Sidoo kale waxa uu yahay Turkigu waxa uu ka qayb yahay ciidamada NATO
waana inta ugu badan ee ku jirta ciidamada NATO waa Turkiya waa waddan quwadiisu aad u weyn tahay, sidoo kale waa waddanka ugu horeeya ee Muslimka ugu quwadda badan leh.